سؤال شو حوي ما الدستور بلديدية مايا لكن الدستور قرما لقرية سيلو قرية يا قرية لما أرماسي وأرماش وينو كهالي وحا ينا ماشي كم غنين ما ممكن إساسي خاطمه وحقوق بقى هي أما أوعن إن دل يضد عصب أي كسر بيران سيدا درتين وحان لغا مارمين يضدك أي ضدك عصب وحلوها حنبيو أو أيسان نقونين معاملنا waa dhisanay dastuurkina waa dhameystiranay cidi lagu soo cidi la danaynaysa in SSC wax la yeelato ha iska soo dhawaato bismillaah alxamdulillaah wa sanaa wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan salaanta islaamku salaamaya guud ahaan muslimiinta shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada SSC khaatimo waxaan rabaa inaan si gaar ah u salaamo dadka SSC khaatimo oo runtii halgan dheer iyo hawl dheer ka bacdi go'aano masiiriya gaaray midnimo wada jir muujiyay karti iyo dadnimo muujiyay ku xaqiijiyay ahdaaftoodii waaweyneed intii ugu muhiimsanayd aasaasay maamul iyo aayo ay ku hirtaan dabcan meeshaan soo marnay isaga ma sheekeynano inteena badan waa la soconay ha lagu kala xog duwanaado ha lagu kala waqti badnaado لكن واسك جرنا لكن وحى حقيقة وأن شعبك يصير رواية وشاقو إن المالين جوان قارني جوان كاسوها عاي كتشي يسمعمون وصل لها يندبوا النقشة ينقدر دبلو أيضا سي أدرتين سي مامل كاي عاي كتشي عشانوها جاجان وحلقة مرمانا إن عن إلى من النمرة وكبل عن نساء من النمرة السياسية من النمرة بالشو taasi waxay ku iman kartaa oo inoogu hagaagaysa oo inoogu barakoobaysa inaan ilaalino wixii aan ku heshiinay wixii aan ku soo saarnay bayaankii laascaanood wixii aan ku qoranay axdigii ee lagu dhaariyay maamulka sidaa darteed waxaan rajaynayaa haddii aan ku dadaalno inaan axdigaas ilaalino iyo waxa ku qoran ee markii hore aan ku heshiinay inaan midnimo helayno mid siyaasi iyo mid bulshada waxaan rabaa inaan tilmaamo qodob kamid dhowr qodob oo kamid yahay shirweynaha axdiga ku yaal buuye shirweynaha axdiga ku yaal waxa weeye shirweynihii ay ka tashay ka bacdi bayaankii laascaanood ka bacdi axdigii la qoray ka bacdi maamulkii la dhisay ka bacdi dagaal baa lagu jiray waxaan damacnay in marka deegaankeena aan ka saarno dadka soo duulay ee ku soo hungureeyay ilaahay guusha naga siiyay inaan ka bacdi samaysano dib u eegis iyo qiimeyn iyo horsocod iyo inaan maamul rasmi uga gudubno haddaba maamulka rasmiga ah waxa laga gudbi karaa wada tashi siyaasadeed iyo wada tashi bulsho wada tashiga siyaasadeed sida uu u dhacayo axdiga qeexaya shirweynuhu soo u dhacayo axdiga qeexaya shirweynahaas waxaa laga rabaa inay ka soo baxaan hanaankii maamul rasmi loo gudbi lahaa oo bulshadu sidii hore isku raacsanayd ay u sii xoojiso su'aashu waxa weeye si maamul rasmi loogu gudbo ma khasaba dastuur inaan qorano shardi uma aha arrintaas waxaa shardi ah inaan wax heshiis ku nahay inaan shirno inaan ku dhawaaqno inaan maamul rasmi nahay wixii ijraa'ada ama qodobo ah ee inaga qabyana shirweynaha dhameystiraya wuxuuna ku dhameystiraya inuu maamulka rasmiga ku hawlgalo su'aashu waxa weeye ma dastuur baa la diiday maya laakiin dastuur goorma la qoraya see loo qoraya yaa qoraya dhammaan arrimahaasi waa arrimaha shirweynuhu ka hadlayo waxaa iyana meesha ka maqnayn maamulka SSC khaatimo wuxuu u baahan yahay ama ucan in dal iyo dad cusub ay ku soo biiraan sida darteed waxaan laga maarmay
iyo dalka iyo dadka cusub wax loo hambeeyo oo aysan noqonin maamulna waa dhisanay dastuurkina waa dhameystiranay cidii la danaynaysa in SSC wax la yeelato ha iska soo dhawaato arinta aanu sax uma arko waxaan u arkaa in maamulka la sii jiri karo maamul rasmi ah u gudbi karo axdigiisana ku sii shaqayn karo dadka iyo dalka aan doonayna inay maamulka ku soo biraana wax loo hambeyn karo arintaasi tala u baahan tahay tala u yeeray u baahan tahay sida darteed shirweynuhu waa laga maarmaan taamicineedu ma aha shirweynuhu meesha ka saaraya dawladnimada wasaaradihii waa jirayaan hay-adihii dawladda waa jirayaan sidoodii bay ahaanayaan mas-uulun baa bedelay meel uu joogaba marka shirweynuhu dawladna ma kala dirayo dawladdana dib uma ridayo kaliya taladeennii aynu horey u gaadhnay baynu hagaajisanaynaa intaas waa inay caddahay arrinta dastuurkuna waa caddahay waxaan soo dhawaynayaa cid kasta oo ilaalinta axdiga taageerta oo ugu horeeyaan xildhibaanada iyo wasiirada odayaasha iyo dadka shacabka sidaa darteed waxaan ku boorinayaa shacabka SC Khaatumo inaan u midowno inaan maamulkeenu sii hana qaado sidoo kale waxaan ku baaqayaa in wada tashi dhaba oo xaqiiqo oo siyaasi u dhaco si meesha uga baxo wixii ama khaldami kara ama naga xumaan kara waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen gacmaha isqabsan doono taladeenu wada tashi noqon doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.